waxaana wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha bariga dhexe. Ciidamada Iiraan ayaa ku dhawaaqay inay beegsadeen markab Mareykan ah oo sahay u siday ciidamada Mareykanka ee ku sugan dekedda Salalah ee dalka Cumaan. Siday warisay warbaahinta Al Jazeera oo xiganaysa war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka oo ku sheegay inay beegsadeen markabkaasi isla markaana ay khasaare xoogan gaarsiiyeen. Dhinaca kale weerarada Iiraan ay ku ekeysay saldhigyada Mareykanka iyo Israel. 12 askari oo Mareykan ah ayaa ku dhaawacmay weerar ay Iiraan ka fulisay saldhigga cirka ee Brais Sultan oo ku yaala dalka Saudi Arabia, siday warisay CBC News. Dhinaca kale hal qof ayaa ku geeriyooday, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen gantaal ay Iiraan ku dhufatay magaalada Tel Aviv, siday warisay Al Jazeera oo soo xiganaysa warbaahinta gudaha Israel. Israel ayaa dhankeeda weerar xoogan oo dhanka cirka ku qaaday gudaha Iiraan. Intuu socdo weerarka waxaa la beegsay jaamacadda Amir Kabir oo ka mid ah jaamacadaha farsamada ugu waaweyn uguna qadiimisan Iiraan. Jaamacaddan waxay soo saartaa khubaro maamula qaybaha maamulka hay'adaha dawladda. Sidoo kale waxaa loo arkaa meel muhiim ah oo lagu sameeyo cilmi baarista iyo dib u falanqaynta tiknoolajiyadda. Sidoo kale Xuutiyiinta Yemen oo ay taageerto Iiraan ayaa gantaalo ku garaacay magaalooyinka Israel tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Mareykanka oo dhinac iyo sidoo kale Iiraan. Ciidamada difaaca Israel ayaa sheegay inay aqoonsadeen gantaal laga soo riday dalka Yemen, sida ay wariyeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo France Press oo ku sheegay in taasi ay tahay tii ugu horeysay ama gantaalkan uu yahay gantaalada ugu horeeyay laga soo riday dalka Yemen tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Iiraan oo dhinac iyo Mareykanka iyo Israel iyo xulufadooda. Arrintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii shalay dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta laga dareemay dalka Yemen, kuwaasi oo taageero xoogan siiya Iiraan, kuwaasi oo weerarkooda badda cas ku sababay jahwareer weyn oo ku yimid maraakiibta ee ganacsiga caalamiga. Intuu socday dagaalka Gaza ay sheegeen in mar kale ay diyaar u yihiin inay beegsadaan marinbiyoodka muhiimka ah, iyagoo u muujiyay taageero xoogan Tehran, sida uu sheegay hogaamiye Xuuti oo u warramay wakaaladda wararka ee Reuters. War qoraal oo soo dhigay Telegramka Yahya Sara oo ah afhayeenka ciidamada qalabka sida Yemen, kooxda Xuutiyiinta militariga waxa uu yiri faraheena ay ku kicinayaan faragelin toos ah haddii ay dhacaan xaaladaha soo socda. Dhinaca kale arrinta bariga dhexe waxaa wada hadal ka yeeshay Pakistan iyo Iiraan. Islaamabadna waxay cambaaraysay Israel. Ra'iisul wasaaraha Pakistan oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Iiraan oo socday muddo hal saac. Warar diblomaasiyadeed oo dheer oo ka soo baxay Pakistan ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Sharif uu ku sheegay inay wada qaateen wada hadal telefoonka oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda Iiraan horaantii maanta. Wadahadalka telefoonka ayaana ku soo dhamaaday muddo hal saac, sida uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan isagoo ku qoray bartiisa X. Sharif ayaa yiri waxaan siinay madaxweynaha Iiraan halka diblomaasiyadda halka uu marayo iyo inay ka shaqeeyaan in Mareykanka iyo dalalka kale ee gacanka ay u fududeeyaan wadahadalka iyo in colaadda meesha laga saaro. Dawladda Pakistan waxay hore u soo bandhigtay inay diyaar u tahay martigelinta wadahadallada Mareykanka iyo Iiraan.